kulmiye gobolka Togdheer ayaa maanta munaasabad culus ay si rasmi ah ugu dooranayaan hoggaanka ama gudoomiyaha iyo ku-xigeenka garabka haweenka ee xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer ku qabtay magaalada Burco. xafladan iyo siyaasadda loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha garabka haweenka heer qaran ee xisbiga kulmiye, maamulka gobolka, mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye ee gobolka, ururka Now iyo dadweyne kale kuwaas oo ku soo jeena qaartay calanka muuqa dheer ee xisbiga kulmiye kana kooban labada midab. gudoomiyaha garabka haweenka heer qaran ee xisbiga kulmiye Canab Cumar Ileeye ayaa sheegtay in gudoomisadii hore ee garabka haweenka ee gobolka Togdheer Sahra Maxamed Xuseen ay warqadiisa asraada u soo gudbisay isla markaana ay doorashadani maanta lagu doortay gudoomiyaha iyo ku-xigeenka garabka haweenka kulmiye ay soo dhaweynayso. doorashadina si wacan baa u dhacday. gudoomiyihii hore ee gobolka Togdheer Sahra Maxamed Xuseen waxay soo keentay risaalad bay keentay iyadu soo casishay marka loogama baahnaa in la yiraahdo ma ogolaatay iyo meesha loogama baahna kol hadda iyadu soo bixisay gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeenkii iyo meeshii tartankii ku guuleystay waana ku hambalyeynayna run ahaantii. barsaab ku-xigeenka gobolka Togdheer gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka maayir ku-xigeenkii hore ee degmada Burco duqay waxgarad iyo saraakiil ka tirsan xisbiga kulmiye ayaa hambalyo u diray Nasra Qalye iyo hooyadu ku guuleysatay doorashadan waxaana ay taageero xoogan u muujiyeen musharaxnimada madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ee 5 sano ee soo socota iyagoo hoga tusaaleeyay inuu dalka ka hirgeliyay waxqabad mug iyo miisaan leh. Balays Farax Shire deeqa weydar ku hadlaysay afka ururka Now ee gobolka Togdheer iyo haween kale oo halkan ka hadlay ayaa dhamaantood tilmaamay waxaanu doorasho ku soo taagaynaa halkan laba hablood oo u dhashay gobolka Togdheer oo gudoomiyenimada u shaqeeyay. waxa dhici doona cod fataaga Nasra Maxamed Qalye iyo Sayid Yusuf. madaxweynaha qaranka Axmed Maxamed Maxamuud Aadan waa musharaxa xisbiga kulmiye ee loo soo saaray 5 sano hadda formasino ilaa markii hadda siino kan muhiimaw ama gudoomiyaha hore Sahra Maxamed Xuseen waxa naga dhaxaysay shaqo fiican oo aad iyo aad ka soo buuxaan waxaan ka baryayaa ilaahay inuu tiina ka sii fiican naga dhaxaysiyo insha Allah rasuulana waa jaalka insha Allah ku bashamay inaan garabka haweenka ka soo buuxda aan ku siino Nasra. kadib doorasho fartaaga oo lagu cadeeyay gudoomiyaha iyo ku-xigeenka xisbiga kulmiye gobolka Togdheer ee garabka haweenka ayaa waxa iyaduna hadashay gudoomiyaha cusub ee garabka haweenka Nasra Qalye. ka mahad celinaya waxaan aad iyo aad ka mahad celinaya sida sharafta ay ku dheehan tahay iyo xilkasnimada ee codkiini ay siiseen. idinku shaqayn doona si xagarliya oo qalbi furan oo niyadsan ayaan idinku shaqayn doona.